baasaboorada markaan tixgelinay muhiimadda gaarka ah ay leedahay helidda baasaboorka guud ahaan iyo gaar ahaan xaaladda siyaasadeed ee marar badan suurtagelin weyda in muwaadiniintu deegaankooda ku helaan baasaboorada. waxaan su-aasha marka waxay noqoneen waxaan soo jeedinaynaa in wasiirka amniga ay wehiyaan marka hay-adda ay jawaab ka bixiyaan su-aasha la xiriirta adeegga bixinta baasaboorada. waa arrinkaas marka taasa asaasa wixii kaloo markaasi ay xildhibaano barlamaan marka way weydiin karaan markaas ay ku jiro tan ku horma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. gudoomiye mahadsan tahay xubnaha golaha baarlamaanka taliyaha booliiska agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha bahda saxaafadda ciidamada qalabka sido markooda ay salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gudoomiye su-aasha horumahin laakiin hadda halkaan ku haysanaa tixgelinta iyo cabashooyinka ay ka imaanaysa helidda adeegyada aasaasiga ah saas horu aqsina ku noqdo mar rabo ee baasaboorada. gudoomiye waxaan aaminsanahay annaga in qof walba muwaadin xaq u leeyahay sida ku cad dastuurka inuu helo baasaboor. marka haddii wax su-aal jiraan waa si specific waana la weydiin karaa. sidoo kale waxaa ila socda hadda oo ila wehdiyo halkan agaasimihii hay-adda. marka anaga haddayna wax qaasi jirin waxaan aaminsanahay in meel kasto gobollada dalkan lagu bixiyo laga soo galo xamar lagu soo diro hal meel laga daabacaa. meesha laga daabaco waa muqdisho laakiin meel kasta waxaa jira systemkaasa laga soo gelshaa qofka faraha marka laga soo qaado hadday gobollada qaybahooda kala duwan noqon lahayd waddanka dibadiisa safaarada marka la soo gelsho waa daabacnaa kadibna waa u dirnaa dadka markaas lahay dadka muqdisho joogana halkaan ay ka qaataan. wixii faahfaahin waxaanu dhaafaa agaasimahaas ugu faafay arrimaan oo ku saabsan baasaboorada. guddoonka baarlamaanka xubnaha golaha shacabka iyo wasiirka amniga iyo taliyaha dhammaan waa idin salaamay. waxaan kulley anigu u hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo technical ahaan aan u hadli doonaa. boolisi ahaan waxaa ka hadlay wasiirka oo aan rajeynaya inaad dhegaysateen. sidaad la socotaan baasaboorku waa xaq uu leeyahay muwaadinku uuna siiyey xeerkii soo baxay 1970. kaheed ahaan annaga waxaan u xil saarannahay maamulka iyo bixinta iyo kontaroolka baasaboorka. sida su-aasha ku xusan waxay ahayd in cabasho ay jirto dadku ay ka cabanayaan in adeegu uu soo gaari waayo. mudane gudoomiye mudanayaal waxaan rabaa halkan inaan ka xuso marka hore hadda dalka gudihiisa waxaa baasaboorka laga bixiyaa 28 xarumood oo dalka gudihiisa ah ayaa baasaboorka laga bixiyaa. waxaa kaloo adeega laga helaa baasaboorka oo muwaadinku uu ka heli karaa 31 safaaradood ama 31 isugu jira qunsuliyado iyo safaarado. marka la isku geeyo macnaheedu waxa weeyaan 59 goobood ayuu muwaadinku adeega ka heli karaa dalka gudihiisa iyo banaankiisa. muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu mudan yahay intaas in ka dhow inuu ku helo adeega oo tuulooyinka uu degan yihiin iyo degmooyinka dhammaan lagu geeyo. haddii geedaha hoostooda lagu geyn karana lagu geeyo. taas ayuu muwaadinku xaq u leeyahay uuna mudan yahay. 3 sano oo la soo dhaafay waxaan soo gudbinay soo jeedino aan ku soo raacinay miisaaniyaddeeda soo jeedintii miisaaniyadda soo raacinay oo ay ahayd in la ballaariyo. taasina sida la socotaan waxaa caqabadu ay ka timid in la waayay miisaaniyaddii oo ay xiran tahay. waxay ahayd sanadka 2018 2019 inaan ku kordhino 15 goobood oo dheeri ah dalka gudihiisa.
waa soo jeedinay waa soo gaarsiinay wasaaradda maaliyadda waxaana duruuf guud oo dalka ka jirta ayaa keentay in budget loo waayey waxaan rabaa inaad idiin sheego 3 sano oo la soo dhaafay waxaan si dadaal dheeri ah oo wasaaradda iyo anagu aan samaynay waxaa la howlgeliyey oo aanu howlgelinay 13 goobood oo baasboorka laga helo oo dalka gudihiisa ah iyo 5 safaaradood oo adeega la gaarsiiyey goobaha qaar dalka gudihiisa laga furay uma aynaan helin budgetkii hase ahaatee qaarkood weli waxay ku shaqeeyaan si volunteer ah ayay ku shaqeeyaan shaqadana way socotaa adeegana wuu qaataa muwaadinku waxaa marka garan kartaan xafiis marka la furo oo doonaysid adeeg inaad ka bixisid waxaa loo baahan yahay kiro waxaa loo baahan yahay koronto waxaa loo baahan yahay internet waxaa loo baahan yahay shaqaale mushaar waxa dhan oo loo baahan yahay waa wax ku soo noqonaya in loo helo dhaqaalihii lagu howlgelin lahaa taasina kullow adinka ayaa igaga waroon waana mid hadda cid lagu eedayn kara ma ahane waa wax ku xiran dakhligii dalka iyo siyaasaddii guud ee maaliyadda intaas ayaan laakiin waxaan idinla qabaa muwaadinku inuu xaq u leeyahay in meesha ugu dhow uu ka helo baasboorka iyo adeega baasboorka uu ka helo su-aashaasi waxaan isleeyahay inay guddoomiye ahataa innagu waxaan diyaar u nahay xilli kasta inaan ballaarino ugu geyno halka muwaadinku uu joogo ka qaato meesha ugu dhow laakiin marka ay loo baahdo wixii lagu socodsiin lahaa ay keeni karto in shaqadii ay socon wayso aad iyo aad u mahadsantihiin amniga iyo furuucdeeda wasaaraddii labaad maalinkii koowaad waa baarlamaanka taariikhdiisa gelaysa annaguna xaqaas aan practice garayno aad baa u mahadsantahay islow wasiir 3 su'aalood oo kooban waaye midda koowaad waxaa weeye immigrationka waxaan ognahay taliyaha hay-adduna waa joogaa wasiirkuna waa joogaa runtii meel dakhli badan soo xaraysa waa oo dalka dakhli badan ku soo kordhisa baasaboorada weliba dee qiimo ka badan qiimaha dunida baasaboorada lagu qaato qolofkooda ayaa maaragta la bixiyaa haddana 15 goobood oo qorshaysnayd sanadkii 2018-19 in laga furo dalka si facility-ga lagu dhaweeyo dadka Soomaaliyeed meelahay joogaan ayaa la waayay baa la yiri marka taas wasiirka amniga ayaa siyaasad ahaan u qaabilsan arrintaas marka taas wasiirku dhankiisa ay u wajahan tahay sidee loo waayay karaa 15 goobood ay hay'adda soo gudbisay iyadoo dakhli badan soo xareysay in maaragtay adeegaas muwaadiniintaas loo dhaweyn waayo tan kale oo taliyaha agaasimaha weydiinaya waxaa weeye gobollada iyo xuduudaha dalka waxaa ka mas-uula immigrationka soo gelitaanka meelaha xuduudaha immigrationka ayaa ka mas-uula oo ay tahay inuu joogo interim pointska dalkoo dhan hay-addu ilaa iyo imisa tan baasaboorada waa garanay ilaa iyo imis ayay gaarsiisan tahay dalka oo ay shaqadeedii caadiga ahayd oo lagu ogaayo immigrationka ay wadaa taas marka halkaasi la xiriirtaa su-aasha xigta sharcinimada hay-adda NISA ayay la xiriirtaa wasiirkeena ku socotaa hay-adda NISA dad badan baa u xirxiran waana hay-ad jirta hadda shaqaysa intay rabtay dadka iska haysataa qofka rabtay afduubataa airboor maraya oo wasiiro ayaan ognahay Jubbaland ay ka mid ahaayeen wasiirkeeda amniga in laga afduubtay airboorka hay-addaasi sharcigeedii maxaa hortaagan wasiir in la hor keeno baarlamaanka si loo ogaado shaqadeeda rasmiga ah oo ay dalkan u hayso oysan sidii hangashtii xilligii kacaanka shaqayn jirto kale saysan ugu shaqayn waayo hadda shaqadii hore hangashtii ayaa socota shaqadii nabasguddu lahayd ma socoto qodobka ugu dambeeya oo su-aasheeda waxaa weeye wasiir iyo taliyaha booliiska ayay inta badan la xiriirtaa yaa dilay almaas gabadhii 20 November ayadoo airboorka ay xalana joogta xabaddu ku dhacday xabadda shiika ay ku dhacday 20 November waxaa ka soo wareegtay 20 casho ku dhawaad yaa dilay maxaad xog naga siin kartaa baarlamaanka Soomaaliya nahay gabadhaas xoog badan lagu soo baxshay oo sida fudud ku dhimatay oo tacsida kaliya aan dawladda ka hayno iyo guddi baa loo saaray 20 kaas casho
maxaa natiijaho la gaaray yaase dilay ilaa hadda xabadda ku dhacdaysa xaggee ka timid waa mahadsantiin tahay su-aashayda koowaad waxay ku saabsan tahay sidaan la wada soconno baasaboorada laga bixiyo dalka deegaanada anigu aan ka soo jeedo ee somalilan sababo siyaasadeed daraaddood baasabooradaas bixitaankoodu wuxuu ku qaataa ama uu ku tagaa qof kasta lacag aada uga badan midda sharciga ah halkan laga qaado ilaa $400-500 gaaraysa xaalado siyaasadeed oo ku gadaaman ayaanan fahmi karaa inay arrintaa keeneen laakiin mudane guddoomiye waxaan isleeyahay waxaan qiil loo heli karin in dadkaasi marka ay halkan yimaadaan baasaboorada ay dhib badan kala kulmaan waana ognahay in ay mudan tahay in la tixgeliyo baahidooda gaarka waayo qofku intuu halkan joogo waxaa ku baxa kharash aad u fara badan oo gurigiisii ma joogo hoteeluu degan yahay waan garan karnaa safar dheer buu soo galay marka in procedureka la mariyo qofka xamar ku dhashay gurigiisii intuu ka soo tooso baasaboorka sida dhibka yar haddana gurigiisii u noqon kara marka uu tago maxaa la marka uu hawsha ka inta uu hawsha ku jiro waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka ama agaasimaha in uu sharaxaad ka bixiyo sida dadka loogu hawl yarayn karo inay baasaboorada u helaan si ka dhab yar sida dadka xamar degan lianna iyagu meelo dheer bay ka yimaadeen sababo siyaasado aanay waxba ka qaban karinna way ku gadaamantay safridda ay baasaboorka intaa dheer usoo safreen midda labaad mudane guddoomiye waxay ku waajahan tahay mar labaad maxaa la yidhaahdaa waxay ku waajahan tahay wasiirka laakiin waxaan jeclaan lahay inuu arrintaa ka jawaabo taliyaha ciidanka booliiska su-aashaasina waxa weeye sidaan la wada soconno gedo ciidamo daraawiisha oo jubbaland ka amar qaadan jiray xukuumadda federaalka waxay ku haysaa farataysi ay rabtay inay ay u beddesho ciidamadaas booliiska laga xukumo booliiska dhexe ee dowladda federaalka ay xukunto arrintaasina waxaan qabnaa inay duminaysa hay-adihii aasaasiga ah ee laga soo unkay hoos ee maamul goboleedyadu ay soo unkadeen in ciidan u tababaran oo iyagu iska leeyihiin loo wareejiyo federaal iyadoo aan heshiis lagu ahayn arrinta su-aasha ugu dambaysa mudane guddoomiye mar labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka iyo way ka dhexayn kartaa iyo taliyaha booliskaba sida aan la wada soconno saldhigyada magaalada muqdisho waxaa madax looga dhigay dad aan khibrad badan u lahayn ciidanka booliiska in badan oo ka mid a waxaa sidoo kale jirtay in saraakiil ciidanka booliiska in badan usoo shaqaynaysay shaqadii laga buriyey oo lagu bedelay dhalinyaro aan khibrad aanu lahayn arrimaha ciidanka booliiskuna waa khibrad gaara oo si gaara loo barto qof kasta layskama qori karo marka mudane guddoomiye waxaan rabay inaan wax ka ogaado sababta ay arrintaasi u dhacday iyo taliyaha boolisku doorka uu ka ciyaaray iyo waxa uu ka qaban karo in la soco taliyaasha waa salaamaya su-aalo yaroo gaagaaban marka koowaad waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan mar kasta oo golaha uu ku yeedho mudane wasiir waxaad hore u soo wadataa taliyaha booliiska iyo taliyaha immigrationka taliyaha nabad sugiddu kuma hoos yimaada miyaa taliyaha nabad sugiddu macnaha hay-addaada wasaaraddaada ma hoos yimaada miyaa wax cudurdaarse ma ka haysaa oo uusan uga soo qayb gelin fadhiyada u yeeritaanka baarlamaanka uu mar walba u yeero wax cudurdaara ma ka haysaayo oo dabcan unuusan ka soo qayb geli karin ah mise uu kaa yaraa xoog badan yahayo maba u yeeri kartid macnaha oo golaha ma keeni kartid su-aasha koowaad waaye su-aasha labaad aniga iyo xildhibaano badan oo golaha ka mid a galbihii waxaan u aalmiinta tagnaa maxay ahayd toy qaybtan dambe oo airportka iridda afisyooni markii 10 saac iyo wixii ka dambeeya aan rabna inaan meesha ka galno waxaana la yidhaahdaa eygii waa shaqatig macnaha waa eygii meesha wax ka baari jiray waa uu rawaxay oo shaqadii uu ka tegay ma geli kartaan meeshaas yaan uga dacwoonayo macnaha oo si aan macnaha aan
howlaheena u gudan airportka qof xildhibaanahoo raba inuu airportka uu galo oo soo almiintay ama danihiisa ka soo qabsado in la yidhaahdo eygii uu rawaxayo ma geli kartaan meesha yaan uga dacwoonaa meeshaas hoos tagtaan mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullah uu na weydiiyey xildhibaan fiqi tan immigrationka xuduudaha hadduu ilaah yaraado waxaanu dhaafaa agaasimaha su-aasha labaad waxay ahayd sharciga hay-adda neysa maxaa hortaagan oo loo keeni waayo golahan waa mahadsan tahay xildhibaanka waxaa mena hay-adda isaga hore ugu soo shaqeeyey sharciga gacantan ku hayna hadduu ilaah yidhaahdo maraan soo diyaaranay haddana dibaan u celinay mar dhow golaha wasiiradaan keeni doono hadduu ilaah yidhahdo sanadka cusub haddii golaha wasiirada ay soo dhaaftaan halkaan la keeni doono hadduu ilaah yidhahdo waa taasna anna processo insha allah su-aasha kale saddexaad uu weydiiyey yaadile almaas ilaah u naxariista almaas jannad firdows ilaah ka waraabsho baaristu way socotaa aniga shaksiyaha gacanta ku haayay taliyaha booliiska mar raba halkan inaan ka hor dhaco laakiin baaristu way socotaa mar dhowna waa kula wadaagi doonaa adin shaqaas familkan waa la wadaagna gabadha ka dhimatay baaristuna way socotaa tan ah waa cabdifataax su-aalahuna weydiiyey baasboorka dalka laga baxsho o dhan somalilan lacag ka badana laga baxshaa waxaan ku xaqiijinaya xildhibaan cabdifataax in anaga ka wasaarad ahaan iyo hay-adda socdaalka jisida hal tariifo aan ka qaadno tariifas ay go-on tahay waxna kuma kordhino waan weydiin kartaa hal tariifo systemka waa ku jira ama qofka safaarad ha ka qaato ama waddanka meel kastoo waa uu ka joogo hal tariifo aan ka qaadnaa marka hadday jiraan in waxyaalo kale isdabamar siran uu sheegi kartaa baaritaan waan samaynayna waana ka hortegayna laakiin dadku waa isku mid insha allah tan ciidamada gedo taliyaha booliiska uu dhaafa hadduu ilaah yidhaahdo cabdifataax wuxuu kaloo na weydiiyey saldhigyada magaalada muqdisho iyo dadka ciidamada la qoray in experience leen xildhibaan cabdifataax waxaan umaleynaa waa joogtay 3 sanad magaalada dhalinyarada hadda aan u dhimanay muddan way shaqaynayeen khibradda way leeyihiin wayna firfircoon yihiin waana dareemi kartaa magaalada amniyaadka laga dareemayay bilaha ugu dambeeyay wax isbedel marka waxaan aaminsanahay anagana arrintaas aan ku saxsanayn taliyahan waa iga dambeyn doonaa xildhibaan jibriil wuxuu yidhi taliyaha neysa xildhibaanku waxaan jeclaan lahay horta inuu la socdo ajendaha maanta loo joogo dhowr xildhibaanaan soo jeediy motion aniga ugu soo address-gareeyeen eegaana codsada in loo keeno taliyaha booliiska iyo taliyaha agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha marka kuma jirin ajendahana ma ahayn qof sharciga ka weyn male qof walba halkan loogu yeeri karaa madaxweynaha ugu sareeya dalka ra-iisul wasaaraha wasiirada isla xisaabta intaha furnaan waayo hadda ka horna wuu yimid taliyihii waa keena mar laga codsaday haddana denadal waa la keeni karaa airboortkii iyo saa ula socotaa airboortka waqtigaa lagu galaa inta badan wixii habeenada ka dambaysa socodkaa yar dhib kale ma jiro is-socodka gaadiidkaa yar baabuurta gelayso aan shaqo u geli lahayd 10 saac ka dambe markay soo rabaxan waa dhici kartaa iyaha inay baxan laakiin dee wax cabasho gaar jirto waa ina soo xiriiri kartaa anaa facilitation ku sameyn hadduu ilaah yidhaahdo dhib kale sama jiro dhinacaas waan mahadsantihin wasiirka amniga iyo laga yaabo taliyaha booliiska inay soo hoos gasho agaasimaha waa iga nabadgelayaa maanta mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa arrintii gobolka banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo magaalada 3 gudoomiye degmo iyo 9 agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aanan yani miino loo dhigayna ahayn guri la soo jabiyana aan ahayn oon xafiiska ka dhacay dhacdadaas ma waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka hore oo kaleeto allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaabo xaggee ku dambaysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambaysay waxyaabo kaleeto oo la qarinaayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasaan kuula wadaaga ay dhacayso kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen sooma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowda siday ku dhaceen arrintaas aaday muhiim noogu tahay maadaama aan hay-ad ahaanna aydan usoo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taliyaha booliiska waxaan rabaa arrin asagana ka horreysay ilaa ay haddana socoto inaan asagana su-aal ka weydiiyo oo ay ka mid tahay
bajaajlayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynayo ciidankeennii booliiska soomaaliyeed ee waddooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa 4 biloodoo lasoo dhaafay 3 ilaa 4 bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii soomaaliyeed qayb ka mid ah waxaa kaloo jirto taliya xijaar waxyaabo badan oo lagu soo eedeeyey oo aan goobjoogna u ahaa qaarkood oo ay ka mid ahaayeen xushmad darro iyo tixgelin la'aan xafiiskiisa lagala kulmo khaasatan mas-uuliyiinta waxaa kaloo jirta taliya xijaar arrimo oo ay ka mid tahay isticmaal awood iyo ku tagrifal sharciga xaggiisa uu ku tagrifalaayo khaasatan saraakiisha oo aan isagoon habraac iyo ciqaabeed saxa u marin inuu ama iska xiro ama uu si ay dhiida ku dacweeyo waxaan rabnaa inaad arrintaas nooga jawaabtid taliye waxyaabihii sababay iyo siday ku dhacday arrinta xushmad la'aantana ma dabeecaday kaa tahay iyo dhaqan mase dad gaar ah oo aad ugu dan leedahay ayaa jirta xushmad darradaas amaadsantaha su-aalihii ani aan ugu soo talagalay waa la weydiiyey waanu ku mahadsan yahay si fiican ugu jawaabay tan kale dhinaca taliyaha booliiska waxaan gobolkan boqol la dhahay degmada waajid hal booliisaa jooga haqoslina degmada waajid hal booliisaa jooga boqol dhan waxaa jooga 23 degmo yaroo xamar jajabana waxaa laga yaabaa 200 oo booliis inay joogaan gobol dhan inuu 23 qof oo booliis ay joogto markaan waxaan rabnaa arrintaas anigii waa tegey meesha waa ka soo qoray tan kale wasiirka amniga maanta in loo yeero ma bahan sababta kal fadhigii afraad iyo shanaad su'aalaha la weydiiyey dadku weydiiyey faqiyaa ku jiray maanta inuu su'aalo weydiiyey ma guddigaa loo xil saaray guddigooda in wax la weydiiyo waay an in la iska diraa rabaa wasiirka maanta in wax la weydiiba ma laha sharciyan barkee guddiga amniga iyo guddiga difaaca waxaa rabnaa inayna hor keenaan qaraxii zooba ka soo bilow waxyaalihii badnaa oo dhacay su'aalihii ay weydiinayeen ilaa hadda maalin walba su'aal in la weydiiyo maanta waxaan dhihi lahaa guddoonka ka codsan lahaa wasiirka in iska bax la dhaco waxa waa sharci wax lagu weydiiyey male waana ka baxay guddoonka waa mahadsan tahay saaxiibaday mar labaad waa u mahad celinayaa wasiirkii iyo labada taliya su-aasheeda waxay ku aadan tahay taliyaha booliiska taliya xijaar iyo wasiirka isagana sidoo kaleenta amniga oo wixii ka quseeyo oo ka taaban karo wasiir iyo taliya November 20-keedii waxaa dhacay dagaal oo ka dhacay Egis Control oo ay ku dagaalameen ciidamada booliiska iyo ciidamada kale asluubta dagaalkaas dagaal xoogan oo aad loogu warqab u ahaa ciidamadii Soomaaliyeed meesha ku dagaalamayna dad badan baa ugu dhintay shacabkii meesha marayayna ama dadkii degaankana dad baa ku dhintay ciidamo Soomaaliyeed oo qaabaysan oo hoggaan leh oo disibliinkooda iyo waxooda mataqaanaa leh inay isdagaalaan oo ayankii hub isku qaataan ay islaayaan arrintaas oo ay sababtay inay ayagii isdilaan bis ma ahana inay dadkii shacabka ahay ay dileen arrintaas maxaa sababay inta ku dhintay khasaarahana oo aad baaritaan ku suubiseen meeqay noqotay dadkii dhintay yaa loo raacanayo adinkana maxaa tilaabo ka qaadeen weliba arrintaas waxaa ku jirtay gabadha almaas elman allah u naxariiste xabad halkaas ka imaaday baa ayadana dishaa la dhahay marka inkastoo hadda aad qaybtii hore su-aashaas aad dhahday baaritaan baa ku socda arrintaas intaas la eg baarlamaanka waxaan rabaa inaad taliya ugu warantid siday wax u dhaceen intii khasaare aheedoo dad nagaga dhimatay shacabka ahaa iyo booliiska maxaa tilaabo ah oo cinqaab ah oo maxaan ku dhahaa arrintaas ah oo laga sameeyo insha allah mahadsan tahay waxaan ku bilaabaa su-aasha inuu weydiiso xildhibaan aamine maxamed cabdi dhacdada gobolka banaadir ilaa u naxariistay guddoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya agaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa u naxariisto baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin
waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna way u xiran yihiin baaritaanka waa socdaa wuu socdaa markaan leenahay waxay sabab u tahay in dadka lagu taagan yahay marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhammaada baaritaanka laakiin dhankeena se meesha u dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo dadkii waa la hay qaaraa la qabtay qaar kalena waa lagu raad joogaa marka haddaan soo bandhigno waxaa dhici karto xoogaa in wax u yimaado marka annagaa ugu xanuun badan dadka waa maxay ahay dadaan asxaabnaha saaxiibanaha kulligeena oo guddoomiyaha ugu horeeyo marka waa ku xunnahay arrinta kale bajaajleyda iyo xildhibaan aaminna weydiisay taliyaha undhaafa sidoo kale taliya xijaar waxaa la weydiiyey ixtiraam daro ase personal u qusaysaa arrinta uuna weydiiyey xildhibaan idriis isagana taliyahay ku socota oo bakool ah xildhibaan beenabeena tuuna weydiiyey dhacdada ka dhacday 20 November waa sax dhacdadaas waa dhacday ciidamada qaarna waa la soo xiray hubkii meeshaana waa soo xirnay hubkii aan ku wadnaa hordhac waxaan sheegay baaritaanka socda waxaan leenahay hubka qoriga dhashiikaha waa adagtahay si lagu tijaabiyo badanaa qoryaha tijaabadana haysano waxa ay ka kooban AK iyo bistoolo marka meel lagu tijaabiyo oo baahan yahay juhdi badan la geliyay dad kale oo ay ajnabi han kaashanay marka baaritaankaas waa socda Ilaahay dad waa ku dhintay waa runta dadka goobtaas u dhawaay marka ciidana baaritaankeeda waa haynaa ciidamadii hubkoodana gacanta lagu hayaa waana maastiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدونك برلمانك حلمان هذا شرفت له برلمانك الصومالية بعد صحافة سراكيشة وزير كامنية هذا الصعدالك دمانتي وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدان كجواب السؤالها halka ku qoran aan kaba bilaabo tii u horreysay cabdifataax gedo ciidanka booliiska Soomaaliya waa ciidan federaal ah ciidan maamul goboleedyadu leeyihiin waa jiraan labadabana dastuurka dhigaya ciidanka federaalka dawladdu waxay ka soo qoran kartaa gobolkay doonto iyo meesha ay dan moodo ciidan waa laga soo qori karaa gobol kasta ha ahaado region kasta ha ahaado maamul goboleedyaduna waxay ka qortaan inta iyaga ay gacanta ku hayaan marka biciid maaha inaan galgaduud ama muxuu ahaa hirshabeelle ama geda aan booliis ka soo qoranno wax dhibaato uma arko taa intaasaan kaga gudbayaa muxuu ahaa su-aasha labaad isagana uu soo weydiiyey bajaajleyda sidaad la socotaan bajaajleydu waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah muxuu ahaa guddi bay leeyihiin 9 nin baa guddi fulino ah dhowr iyo 30 waxay yihiin golo dhexe oo nidaamsan dhowr iyo 10 ku weeye ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan wax eedana kama soo sheegtaan iyaga habeen mootooyinkooda la dhaca marka ciidanka badbaadiya ay habeen walba u soo cawdaan inay mootada noocaas ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu maanta waxaa loo oranayaa 20 kun ee dhalinyarada ee bajaajyada habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo laakiin waa dilaan ma filanaynin laakiin waa qof iyo aragtidiis laakiin 20 kun iskama socdeen intaa waxaa dheer faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo xitaa madaxdiina baabuurtooda ayaan mari karin bay maraan maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan xogaa yare saxmada waa sameeyaan marka taas intaas uga gudbayaan dhib iskuma qabno waana ila kulmay aniga guddigooda fulinta anay iigu yimaadeen xafiiska aad bayna noogu mahadceliyaan sidaan aan muxuu ahaa ula shaqeyno ku tagrifalidda awoodda taliyaha ciidanka booliiska oo 2 nooc ah mid xushmad darro ah iyo mid muxuu ahaa ciidanka dhexdiisa
waxaan filayaa meelay adduunka ka dhacday ma laha headquarterkii booliiska dowladda federaalka ee soomaaliya inta yimaado qof mas-uulihi intuu yimaado wariyaa istaag war baan kaa duubayaa intuu yidhaaho oo xaruntiisii iyo xafiiskiisii tago meelay ka dhacdo ma jirto oo aanu ugu dulqaadannay oo aanaan meediya tegin oo aanaan cid u sheegin oo aanaan cid ka dacweyn maxaa dhacay annaku waxaanu dul u leenahay inaannu shacabka ku dhex jirno xaafadaha ku dhex jirno mas-uuliyiinta ku dhex jirno ayaa mas-uuliyaddeenu tahay laakiin mar haddii halka laga sheegay hadda ka horna dhowr jeer meediyaha aan ka maqlay cabasho noocaasa waxaan rabaa baarlamaanka inaan u sheego in yacni xafiiskayga gudihiisa iyo albaabkiisa ka soo baxaya nin mikrafoon watale waryaha waxbaan kaa duubaya istaabo anigoo intaas sarreeya gaasi la socoto taas waxaan leeyahay xushmadarro maahayne ma aanaan la hadlin meediya kama hadlin waa qadarinay waa mas-uul sare sidaasuu ku soo baxay haddana xushmad baanu haynaa baarlamaanka hadduu yahay wasiirada hadday yihiin shacabka hadday yihiin waa noo yimaadaan ixtiraamkaasina mid waalidkeen nagu soo barbaariyo waa midaan ciidanka iyo saraakiilnimada kula nimi maaha intaa haddaan ka gudbo oo aan galo bakool iyo waajid hal askari baa jooga waxaan u malaynayaa 100 maalmood ma dhammayntaan taliyaha ciidanka booliiska ahaa markaad timaadidna qorshaad samaynaysaa waa inaad horta barataa yaad xukuntaa ciidankaagu tiradiisu waa intee saldhigyadoodu waa xaggee madaxdoodu waa xaggee hogaamadoodu waa xataa oo dhegaysataa oo qorshaysaa marka aad qorshe aad samayso qorshahaasaad gelinaysaa marka waxaan malaynayaa qorshahii inay ku jiri doonto dhowaan meelo badannu hadda wax ka qabannay oo ay ka mid tahay CID-daa jirta oo ay ka mid tahay muxuu ahaa saldhigyada aanu ka mid tahay oo ay ka mid tahay kala goosyada dadku aada uga caban jiray oo aanu dib u habaynay marka iyadana inaannu saldhigyada kordhinno oo ciidanka isu baalas karayno meeshii qaar ku badan yihiin qaarna ku dhiban yihiin qorshaha soo socda waaye waanu samayn doonnaa insha allahu tacaala intaasaan بسم الله الرحمن الرحيم guddoonka iyo golaha salaamaya iyo wasiirka iyo taliyaashaba haddaan toos u abaaro su-aalahayga mudane wasiir nidaamka dalka aan qaadanay waa nidaam federaal ah ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee amniga sugaana waxa sharciga ay ku shaqaynayaan waa sharcigii ahaa dalku markuu ahaa hal center oo awood leh maxaa hortaagan inaad keento golahan sharci maaragtay ka tarjumaya nidaamka federaalka oo muxuu ahaa ciidankii heer federaal heer maamul goboleed kala qeexaya inaad keento arrintaas wasiir maxay u qabsoomi laada su-aasha labaad waxay tahay mudane wasiir xildhibaan ka mid a xildhibaanada ayaa airportka lagu celiyey isagoo u socda deegaan doorashadiisii halkaana imaatay xildhibaanadii waxay ka sheegtay in maaragtay hay-adda NIS ay ka hor istaagtay arrintaas ilaa hadda wax jawaaba oo ka hayna ma lahan muxuu ahaay to cidda arrintaas fulisay oo amarkaas bixisay iyo sharciga loo cuskaday in loo qeexaa rabnaa waxaan maqalnay in la yidhi xildhibaanada si hoosa wax loo xallinayaa xildhibaanku dembiga ku dhacay mid qabiil ma ahan mid shakhsiyad maaha waa mid dowladnimada soomaaliya taabtay waayo marka isaga lagama qancin karo waa in laga qanciyo golaha iyo ummadda soomaaliya in laga qanciyo u baahanta taa intaasaan ka leeyahay midda kale waxay tahay CID-da xarunta CID-da taliya waxaa lagu qaadaa lacag baa laga qaadaa dadka faraha laga qaadaayo qofka muwaadinka soomaaliyeed inuusan dembi lahayn inuu lacag ku bixiyo ama uu yahay dembiile markuu dowladdu u yimaado farihii laga qaaday la ogaado arrintaas lacagtaas waxa macnaha ay ku dhisan tahay qaadisteedaas waxaan rabaa inaan fahmo midda kale systemka ay isticmaalaan waa system aad u old u ah oo muxuu ahayto ay adag tahay qofka in la ogaado muxuu ahayto qofka imaanaya meesha inuu yahay qof hore u yimid iyo inuu yahay mid cusub lama ogaan karo
maxaa diiday systemka casriga ah oo weliba heer ay isla shaqeeyaan immigrationka oo qofka dambiilaha ah markii fariisa la xareeyo baasaboorka markuu doono la ogaan karo systemka noocaasa in la gaarsiiyo maxaa hortaagan midda ugu dambaysa waxay tahay suuragal ma tahay hay-ad muxuu ahayto laanta dambi baarista ee CID-da in laga dhigo hay-ad madax bannaan maadaama cabashada booliska ay aad u badan tahay meelaha qaar oo hadda meeshaan laga sheegay dilal booliska qaar ay geysteen sometimes ay dhici karto marka qof dambiilaha la soo qabanayo in ay dambiye kala dhacaan in hay-ad madax bannaan oo aan hoos imaan taliska booliska oo shaqadeeda iskeed ugu madax bannaan in laga dhigo suuragal ma tahay welcome assalaamu calaykum gudoomiye boonta order baan ku soo galay maadaama oo halkan la iga xusay si dadban oo la wada fahmi karo idaacadahana hore aan uga hadlay incident ama shil ku saabsan shil naga dhex dhacay aniga iyo taliyaha booliska mudane gudoomiye taliyahu halkan wuxuu ka sheegay in mas-uul uu xafiiskiisa ugu yimi damcayna inuu wax ka doono laakiin wuxuusan sheegin sidii wax u dhaceen oo ahayd mudane gudoomiye sida ku cad criminal procedures code-ka lixdameeyadii la dhaafiyey oo caddaynaya in haddii qof mas-uuli uu wax sharciga baalmarsan ku kaco su-aasha ugu horreysa xeerraadintu ku weydiinaysaa waxaa weeye sida ku qoran criminal procedures code-ka inaad caddayn la timaado halkana mudane gudoomiye waxaa fadhiya xildhibaano tiro badan oo xishmad darrada iyo qadarin la-aanta iyo wix xuquuqaadkii ay lahaayeen lagu duudsiiyey dareyska ciidanka qaranka soomaaliyeed marka in suuragal ma noqonayso in sharciguna uu kaa dalbanay inaad caddayn keento taliyaha booliiskuna uu weli u haysto hay-adda booliiska inay tahay mudane gudoomiye waa in ka badan waxaa la xusay in ka badan baa la iga sheekeyey marka waa inaan ka hadlo wey mudane gudoomiye marka hay-addani ma aha hay-addii uu xukumi jiray ee nabad sugidda ahayd ee cidday rabta iska xidhan jirtay ee cidday rabta cadaadin jirtay ee cidday rabta dili jirtay waa hay-ad booliisa oo ku dhisan sharci waa hay-ad booliisa oo loo baahanyay inay xuquuqda qofka mas-uulka iyo qofka muwaadinka ahba isku sii ilaaliso marka mudane gudoomiye taa waxaa loo baahan yahay maadaama isagu hadda halkan ka xusay waxaa loo baahan yahay in investigation lagu sameeyo sidii wax u dhaceenna waxay ahayd annagu waxaan ka mid nahay go-aan gaarayaasha dadka waxaanu nahay hay-addii sharci dejinta isaguna waxa weeye ciddii loo baahnaa sharcigaan anagu soo saarnay inay hirgeliyaan xafiiskiisa intaan ugu tagnay oo nayidhi sigoo waraaqihii aanu noo dirin aanu keennay in haddana si fool xun uu gadaal uga baxo waxay tilmaamaysaa mas-uuliyad darro waxay tilmaamaysaa qadarin la-aan waxay tilmaamaysaa xishmad la-aan waxay tilmaamaysaa inuu ka booday mas-uuliyaddii iyo qarannimadii aanu xambaarsanayn meel kaga dhacay marka mudane gudoomiye taasi xisaabta gaaray u baahantay midda labaad waa public space isna waa public figure isna waxa weeye mas-uul qaran meesha uu joogayna waa public space qof kasta oo Soomaaliya ayaa xaq u leh in uu duubo marka faldambiyad dhacayo saacadaas faldambiyad ku dhacayo wax xuquuq uu leeyahay qofku aan laga qaadi karin midda labaad waxa ku saabsan su'aalaha mudane gudoomiye lagama jawaabin su'aalaha ku saabsanaa baahida gaarka ah ee shacabka reer Somaliland ay qabaan iyaga ku kooban waxaan rabaa mar labaad inuu ka jawaabo maxaa la yiraahdaa taliyaha hay-adda socdaalku arrintanna mudane gudoomiye waxay u baahan tahay in si gaara iyo session gaara la iskala xisaabtamo maadaama aanan halka waqtiga u baahnaa aanad iga siin بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية حجين xildhibaanada sharafta leh wasiirka iyo taliyaasha la socda marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa mudane wasiir airportkeenu wuxuu shaqeeyaa sida wasiirkii kaa horreeyey uu yidhi ilaa 5 galabnimo ilaa habeenkii gelitaankiisuna wuxuu ku eegyahay 4 galabnimo anu waxaan ka soo degay
shantii galabnimo iyo barkii waxaa ila socday dad shacaba waxaa la yidhi gawaaridoodu ma soo geli karto afarta galabnimo gelitaankiisa ayay ku eg marka waxaan rabnaa hawshaas inaad wax ka qabato la iswaafajiyo xilliga eerboorkeenu shaqaynayo iyo xilliga la geli karo amnigana mas-uuliyadda innaga ayay ina saaran tahay intaa horta waxaan rabaa in loo fududeeyo shacabka soomaaliyeed annagu dad mas-uuliyiina u nahay gawaarida iyadu xilli walba way socon kartaa laakiin eerboorku waa eerboor ay dadka shacabka ah kana dhoofayaan kana soo degayaan waxaan rabaa booliiska soomaaliyeed meel kasta oo joogaan iyo xilli walba waa u shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed innagana waxaynu ka doonayaa eedaha shakhsiga ah iyo in la kala saaro eedaha caamka ah maadaama mas-uuliyiin asalaamu calaykum waxaan rabaa hadal badan ma raba inaan su-aalay waru galo horta waxaan aad ugu mahadcelinaa wasiirka wasaaradda amniga oo runtii saddexda bilood ee ugu dambaysa ku guulaystay inuu magaalada amnigeeda sugo marka wasiir waa kaaga mahadcelinaynaa marka labaad waxaan maalin la kulmay nin xildhibaan jiirada iskool buliisay ahayd hal askariyaa joogay xildhibaankii u celiyey nin gaashaan laha ag taagnaa ninka celinaya xildhibaanka wuxuu watay calaamadda turkigoo wata ninka xildhibaanka wuxuu dhaha wareedhayaa lagaga dacwoodaa ninkii gaashaanla ahayaa xildhibaanka la hadlo wuxuu dhaha war ninka ayaa xukuma annagu maba xukunno yidhi ninkaan waxaa la yidhaahdaa magacuu ku sheegay anugu haram casmo ahaa la yidhaha ma xukunno yidhi ma xukunno marka taliya haddii nin gaashaanlaa uusan nin diblaa xukumayn yaa xukuma ciidankaas calaamadda turkiga wata weliba calaamadda turkiga tii oo calankii soomaaliya ma xirna ninku calaamadda turkiga u xiran yahan bas marka ciidamadaas turkiga anigu way noo tababareene ciidamada turkiga magaalada kuma ogoleeyey hoos tagaan ciidankaas marka labaad CID-da shacabka soomaaliyeed dhibay ku qabaan habeenkii 10 saaca loo xiroodaa warqadaha dembi la-aanta 10 saaca loo xiroodaa qof waddanka amnigiisa waa la soconaa qof ka lugeeya suuqa xoolaha ee 10 saac tegi kara CID oo warqaddii dembi la-aanta ka qaadan karaa ma jiro maxaa sababay in 10 saac loo tagaa warqadaha dembi la-aanta CID maxaa sababa taliya marka labaad warqadda dembi la-aanta waa qodobka saddexaad warqadda dembi la-aanta waa la raadiyaa oo dembi la-aanaa la yidhaha dadkoo dhan weli qof faraha laga qaaday oo dembi aad ku soo ogtoon oo dembiga hore galay ma jira waa ka baxa asalaamu calaykum waraxmatullah zakariya su-aashiisa ahayd xeerka ama sharciga federaalka lagu dhaqi lahay booliiska federaalka maxaa haysto biidnillah kariim uu soo socdaa oo keeni doonaa laakiin xildhibaan adiga iyo xildhibaanada kale waxaan codsanaa sharciga marka halka la keeno inuu socdo waxaan ogtihiin 2017 laba sano iyo xoogaa sano ka hor inaan halkan keeno sharciga dagaalanka argagixisada iyo sharciga xakameynta hubka halkan uu iska sida baarlamaanka sagaalaadna waa la keenay marka waxaan jeclaan lahaa shuruucda haddaan la meel mar wax micno ma dhalays inaan anaga keenno xildhibaan laga celiyey garoonka airboortka alin cadde arrintaasi waa waxaan u ballansannahay maalin talaada waxaan la ballansannahay guddiga amniga arrimaha gudaha marka xaggan uga hadli doonaa wixii kasoo baxna oo maqli doontaan arrinta CID lacaga ayaa laga qaadaa sababta loo qaada maxay tahay
lacagta CID laga qaado maanta iyo shalay iyo 2 sano iyo 3 sano ka hor ma dhicin hore loogu qaadi jiray lacagtina waa dareemi kartaa service lagu qona khidma lagu qabanaa khidmaas ay la socotaa sidoo kale su'aashaada waxaa la socotay waa analog lagu shaqeeyaa oo digital ma ahan insha Allah aan process waaye hadda ka horna halkan waan ka sheegay shaqaaliyaha tababar ku socdo waxaan u guuri doonaa digital waxaa sidoo kale noo qorsheysan in fariih hor loo qaado keed ku jiray in dib loo iskaan garaasana eegan laga dhigo digital duu ilaahi raado sidoo kale hay'adda CID ama ma laga dhigay hay'ad madax bannaan oo isku taagan in arrintaas waxay u baahan tahay go'aan laga wada gaaro golahan uu soo saaro wax ma ahan fudud aniga ama taliye go'aanka gaari karo anagana noo wada taalaa wixii wanaagsan waa samayn karnaa xildhibaan Faisal wuxuu weydiiyay airportka galitaankiisa iyo habeenuu ka soo degay baawar la heleen xildhibaan waxaa la socotaa airportka shaqadiisa habeenada haddii la gaaro xaqiiqda diyaaradu ka soo degaan laakiin aad u yar tahay laakiin hadday jiraan arrangement ama diyaarada xajka waagi imaan jireen aad u furnaan jiray marka arrintaas waxaan kula noqon doonaa diyaaradahan kula noqon doonaa hadduu ilaahi yiraahdo diyaarada shantay barka yimaado waanu sheegi kartaa way furan yihiin inta badan hadda waxaa diyaarada ugu dambeeya waxaa ka mid ah Ethiopia Airways iyo Qatar Airways iyo sidoo kale Kenya Airways ayaga waqtiyaha dambe wayna furan yihiin airportka waan laga shaqeeyaa laakiin hadduu jiro special arrangement waa la furi doonaa wax dhib ma leh airportka maadaama maalintii inta badan amniga la sugaa habeenkii dhib ma leh laakiin shaqada yar xildhibaan Cali Geley wuxuu sheegay askari oo amarka qaadinin gaashaanla in arrintaas ma hayno nidaamka askartana ma ahan hal qof iyo laba qof wax ka dhacan lagu base garay karo ciidanka oo dhan marka arrintaas hadduu jiro haddaa hebel lihi karta ama gaashaanlaha taqaana meesha aad ku sheegtay baaritaan ku samayn doonaa oo sidoo kale waxaan rabnaa ciidamadaas haram cad waxaa noo tababartay ciidanka dowladda Turkiga noo tababarto xaqiiqadan waxay mudan yihiin dowladda Turkiga loo abaalmarin ama mahadcelin ugu celino macallimiin ay soo direen anaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga heshiis kula soo galay ciidamadaas ay noo tababaraan marka waxaan aaminsanahay aniga aan rumaysanahay ciidamada wadanka Turkiga in wax weyn nooga in la eeday ma ahan wixii qaladaad jiran waa saxina haddaan ogaano arrinta CID waxaan taliyaha u dhaafaa CID taliyaha soo yimid oo ku mahadsan yahay wax badan laga qabto xaqiiqda sida horena ma ahan lacagaha CID qaadana ayaga ma qaado soo wasiirka ugu horeeyay lacag kasta oo xukuumadda qaato waxa la marsiyaa wasaaradda maaliyadda amaastiin hay marka la waadin salaamay xubnaha baarlamaanka su'aasha xildhibaan Cabdifataax ee ku saabsan adeega baasaboorka sidaan hore u sheegnay adeegan waa adeeg muwaadinku uu leeyahay uu xaq u leeyahay mana jirto sabab ama cid ka hor istaagi karto taas waa mabaadi'da guud iyo siyaasadda guud ee dawladda anigana aan ahay sargaalka fuliya siyaasaddaas waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaysan jirin siyaasad cidna ka hor istaagaysa baasaboorka waxaan hayaa oo ku shaqeeyaa awaamir iyo siyaasad wasaaradda amniga guduhu ay soo gudbisay oo ku salaysan muwaadin walba adeeg in lagu gaarsiiyo goobta uu degan yahay waxaa jira duruufo tixgelin u baahan oo amni oo dalka qaybo ka mida ka jira ayaa jiraan taas oo mararka qaar aan suurtagal ka dhigaynin in la gaarsiiyo halkan waxaa jiri kala duruufo kaleeto oo nuucyo badan way jiri karaan oo iyagana mararka qaar culays ka dhigi kara midda dhaqaalaha waxaan rabaa inaan idin sheego qiimaha baasaboorku waa go'an yahay waxa kala duunaan karo waxay yihiin waa sarifka ayaa kala duunaan kara sidaad la socotaan dalka xaaladda maaragtay xaanshida lacagta iyo sarifku duruufo badanaa ku xeeran dalka dibaddiisa sidoo kaleeto dadka adeega ka qaata iyaguna waxay ku kala nool yihiin dalal kala duwan isticmaalo lacago kala duwan sarifyo kala duwan qiimo kala duwan marka guddiga dhaqaalaha iyo dadka dhaqaalayahanka ayaa taa ila fahmi kara annagu waxaan ognahay hadday wax kala duunaan karaan inay tahay sarifka waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaatana ka tegey
muwaadiniin inay jiraan dalal Soomaaliya aysan safaarad ku lahayn ku nool oo Soomaaliyeed waxaan iska kaashanay wasaaradda amniga gudaha oo wasiirku uu naga caawiyey waxaan u sameynay team mobile ah oo 3 biloodba mar u taga waxaa ka mid ah Bangladesh ka mid ah waxaan hadda u sameynay Ingiriiska iyo Ireland iyo oo ayagana mobile team ka aan u dhignay Basalis aan u dhignay waxaan hadda wadnaa 7 wadan oo ay ka mid yihiin Angola iyo wadamo isku xiran oo Soomaalidu ay ka ganacsato iyagana waxaan u dhignay u diyaarinaynaa hadda team mobile oo ka howlgala safaaradda South Africa ee Soomaaliya ku leedahay marka dadaalkaas isaga oo kala har lahayn ayuu socdaa waxa inoo yaala qorsho 5 sano soo socota inaan dadka tuulo dhaafin karno oo barkadaha iyo geedaha hoostooda ay ku nool yihiin inaan team mobile gaarsiin karno qorshaha 5 sano ayay ugu jirtaa marka tan waxaan rabaa xildhibaan Cabdifataax aad iyo aadan kaaga mahadcelinayaa dareenkaada laakiin waa kaaga cudur daaraya markii koobaad dareenkaada inaan social media ka akhriyay oo ay ficneed markii hore inaan la soo gaarsiisid haddana waxaan qaadanaynaa wax alaaliyo wixii tala ah iyo tusaale ah oo aadna siiso ayaan qaadanaynaa diyaar u nahay haddii la yiraahdo haddaan xoog kaaga baahno annagana aan ka helno xoog haddii la yiraahdo taas waa midda baasaboorka xildhibaan fiqi waxaa naga weydiiyey ilaa intee socdaalka dalku uu kontaroolaa su-aashu inay saas u dhignaad uu gaarsiisan yahay ayay u dhignaad waxaan rabaa su-aashaasi horta waa su-aal muhiim ah baarlamaankana waa ugu mahadcelinaya run ahaantii waajib gudashada iyo su-aalo weydiinta iyo in dalkii ay maaragtay dareen u qabaan aad iyo aadan maaragtay uga mahadcelinaya sababtoo ah xuduudaha ka hadalkooda iyo socdaalka ka hadalkiisa iyo baasaboorka ka hadalkiisa waa wax qarannimada iyo jiritaanka dadnimada ummaddan ayay taabanaysaa marka aad iyo aad muhiim u ahaan leed in lagu celceliyo laga hadlo laga doodo anaga xitaa la dhageysto duruufaha ku xeeran halkan oo ah wax anaga naga baxsan iyo wax dalka gudihiisa ah waxaan rabaa su-aashaasi haddaan u gudagal markaa dalka sidaa la socotaan wuxuu leeyahay xuduud dhinaca badda ah oo aad u dheer 300 iyo wax la jira ayaa maaragtay la qoraa inkastoo numberku isbabedelo dambe 5 mar la yiraahdo mar waa 33 waxaan kaloo leenahay xad aad u dheer oo dhulka ah oo 3 dal aan la leenahay iyagana xilligii hore militariga ayaa control jiray dalku markuu burburay waxaa meesha ka baxay controlkii dalka wuxuu iska ahaaday dhul iska furan waxaa batay airportadii ayaa soo bartay oo sidaad ogtiin duruufaha keenay run ahaantii magaalo waliba way isku tashatay waxay furatay airport magacyo badanna waa loo bixiyey laakiin waxaan rajaynaynaa in hay-adda duulimaad wasaaradda duulistu iyo inay iyaguna dib u eegi doonaan waxaa adeega socdaalka dalka laga heli karaa hadda 25 barood oo socdaal oo dalka gudihiisa ah ayaa laga heli karaa adeega socdaalka oo fiisana laga heli karaa saraakiishii socdaalkana ay joogaan calaamadihii iyo qaababkii ay ku shaqayn jireen oo intooda badan midaysanna ay diyaar ku yihiin 14 waa bar maaragtay dhinaca dhulka bar xuduudeed oo dhinaca dhulka ah oo saraakiishu ay ka howlgalaan meelaha qaar gaadiid mobile ay ka howlgalaan 4 dekedood ayaa laga helaa adeega socdaalka sidoo kaleeto oo dalka ah iyo 7 garoon oo iyaguna adeeg caalamiya leh duulimaadyo caalami ay yimaadiin halkaana ay diyaar ku yihiin saraakiil u diyaarsan u tababaran iyo baahi iyo qalabkay u baahnaayeen ay ku shaqaynayeen meelaha qaarna hadda waxaan ku guulaysanay in ay lahaadaan qalabka yaallo inuu noqdo mid isku xidhan oo wada shaqaynayo tiradaas waxaa ka mid ah goobo duruufo jiro awgood inagu aanan kontroolin ayaa jira laakiin ay joogaan saraakiil aad u tababaran adeegana si maaragtay aad u wanaagsan uga socdo aad iyo aadna aan ugu qanacsannahay run ahaantii oo shaqeeya ayaa jira laakiin inagu aanan kontroolin taasna kolley aniga siima guda geli karo laakiin qof waliba wuu fahmi karaa
laakiin waxaan idiin sheegayaa meelaha iyaga ah ee innagu aanan kontroolin in ay yihiin kuwo shaqo fiican ay ka socoto, dad tababar fiican leh, qalab aad u fiican. Cooperationka guud ee caalamka ka dhaxeeya ama wada shaqaynta caalamka maaragtay la isku leeyahay in laga wada shaqeeyo sidoo kaleetana waan ka wada shaqaynaa. Marka waxaan rabaa su-aashii xildhibaankii inaan intaa kusoo koobo. waa 25 bur xuduudeed oo dalka oo adeega socdaalka laga heli karo, laga bixi karo, lagana soo geli karo. aad iyo aad u mahadsantihiin. adigoo mahadsan asxaabtu waa u mahad celinayaa noo timid. su-aalahana muhiim ay ahaayeen. taliyaha aniga su-aal uma qabo, waa cusub yahay, shaqo fiican waa wada allaha garab galo. saaxiibadeeda kalena su-aalo 2 su-aalood u qabay 3. hay-adda socdaalka waa fiican tahay, shaqo fiican ay qabatay, howlo badana waa wadaa, waan ugu mahad celinaynaa. su-aashayda waxay ku wajahan tahay baasaboorka. baasaboorka waxaa jira in lacag laga qaado, lacagaa laga qaadaa gudaha iyo dibaddaba. waxaan rabay inaan ogaado, hadda ka hor waxaa jirtay baarlamaankii 9aad gobolka banaadir yaa dadweynaha wuxuu yidhi teestana u samayna, waa ogtihiin lacagaa la iska jaangoystay tiro badan oo shacabka uu ku wareeray. golaha la keenay waa ka doodna, waa diidna. yacni shacabku wixii culays ku ah waxay u baahan yihiin in laga fikiro. wixii duruufo ay keenaanna waa garan karnaa, wixii duruufo gaar ah keenana waa qiyaasi karnaa oo ku yimaado la-aanta socdaalka oo dee dad wax fahmi karaan. marka waxaan qabaa wasiirkii taliyaha ay dhegaystaana bashoorkooda u dambeeya. wixii duruufo gaareen waa garaabi karnaa, waa ka garaabi karnaa. su-aashayda koowaad waxaa waa lacagta hadda dadka laga qaado gudaha iyo dibadda, tiradeeda inta ay tahay waa la ognahay. yaa jaangooyey lacagtaas? goormaase la jaangooyey? mise wasaaradda ayaa tariifo ku soo saartay? waxaan rabaa lacagtaas in la hubiyo sharciyadeeda. waxaan ka hadlaya waxaa waaye sharciyadeeda waaye. waxaan rabaa inaan ogaado goorta la jaangooyey iyo cidda jaangooysay iyo in ay wasaaradda tariifo ku soo saartay inaan ogaado. waa su-aasha koowaad. su-aasha labaad waxa waa idinkoo mahadsan, kambaniga sameeya baasaboorka, kambaniga baasaboorka sameeya yaa siiya shaqadaas oo baasaboorka ku sameeya? yaa bixiya? seeso lagu siiyaa? waxaa xigta kambaniga marka la siiya shaqadaas waa su-aal saddexaad waay, imise sano ayuu shaqaynaa? wax limited ee muu leeyahay meel ku eg mise waa iska furanta oo kamaba dhammaataba asaga shaqada? saddexdaas su-aaloodan qabaa. waxaa kaloo ii raaca, ani waqtiga ma dhammaadeen. waxaa kaloo qabaa, raalli aada iska xoogsanaya, isku mid aan nahay. waxaa kaloo qabaa taliyaha hay-ad, waxaan su-aashaas waxaa ognahay safaaradaha Soomaaliya waxaa ka furan xafiis uu leeyahay, ay leedahay hay-adda socdaalka. safaaradaha iyo dadkaas u qaabilsan migrationka way isku dhib qabaan, waa ka warqabnaa. wax kale hadida oo xeer ee maa jira madaxa migrationka adiga kugu qaabilsan safaaradda, waxaad isku qabtana lacagaha laga qaado dadka waay. arrintaas wax badan la soconaa, caqabaad badanaa ka jiro, xalay u baahan tahay. marka wax xeer oo migrationka uu leeyahay oo madaxa migrationka safaaradda u joogo
oo uu leeyahay ay ku kala shaqeeyaan maa jiro mise safaaraddiina iska xoogto qofka meesha jooga waxay rabta inay samaysaa ilaa baasaboorada marka la sameeyo lacagihii in la soo diro waaye lacagii markii inta yimaada kadib dadkii baasaboorada inay helaan waaye shacabku waa ku dhib qabaan arrinta kalena middaas waa mahadsantiin aad idinka maxaad inaad wax badan siisaan waxaan rabaa inaan dhowr su-aalood aan weydiiyo taliyaha socdaalka inta aana gelin waxaa hadaayay inta soo istaagay taliyaha booliiska xildhibaan ayaa su-aal weydiiyey runtii su-aasha xildhibaanku uu weydiiyeyna ma aha in ma aragtay in xildhibaan ahaan looga jawaabay ay tahay laakiin hadalkiisa waxaa ka mid ahaa qof waa qof iyo aragtidiis runtii ani arrintaas waxa waaye maadaama baarlamaanku uu hor joogo taliyaha maadaama xildhibaanka uu weydiiyey su-aal siduu doonaba ha u arkee waxaan rabaa inuu xildhibaan ahaan uu uga jawaabo taas marka qof iyo aragtidiis ma aha inta markuu fadhiyo qofku waa xildhibaan wuxuuna matalayaa shacab dareenka shacabkuuna ka hadlayaa marka arrintaas waxaan rabaa inuu hadhowd markuu kusoo noqdo uu wax dhaho taliyaha socdaalka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane taliye waxaa hadda noo sheegtay 25 barood in ama 25 meelood inaa ku leedihiin oo xaduudo ah aa ku leedihiin waxaa jirto feerfeer waa xaduud baynaadka noo dhexeeya annaka iyo garinka shanaad waa meesha keliya oo dalkeenu uusan lahayn immigration wax walbana ay ka soo geli karaan maxaa kaaga qorshe ah inaad maaragtay feerfeer aa ka samaysaan meel customer oo laga soo galo oo aan maaragtay isku socdaalkii labadaas meelood oo xaduud baynaadka ah laga qabto waa meesha keliya oo dalkeenu uu ka furan yahay oo laga soo geli karo runtii amni ahaan iyo wax kastana ay ka dhici karto su-aasha labaad oo aan weydiinayo taliyaha waxay tahay fiisada lagu soo galo dalka fiisada waxay ahayd konton iyadoon la ogaanina isla markii waxaa laga dhigay $60 waxaa noola sheegay $10 inay qaadanayso dadka samaynaya fiisada waxaan rabnaa taasna waxoogaa bal inaa clarification noogu samaysa fiisadaas $60 oo la qaadanayo oo ay tahay waxaa jiro Soomaali ku nool banaanka oo baasaboorro ajnabi ah wata imaanaya dalkoodii inay maal gashtaana aan u baahannahay ay ku soo noqdaan 3 bilood in $60 laga qaado runtii waa dhib badan tahay markay baxaan 3 bilood ay dhacdo ay baxaan $60 laga qaado markay isla markii soo noqonayaan $60 kale laga qaado maxaa xal u ah dadka Soomaaliyeed oo baasaboorrada banaanka wato rabnana dalkeen inay ku soo noqdaan ay maal gashtaan mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan weydiiyo taliyaha booliiska mahadsanid toosaan u galayaa inay qortaan waa jeclaan lahaa madaxda sharafta leh ee aanu u fadhina meesha kow mudane gudoomiye waan u mahad celinaynaa wasiirka amniga iyo kaabiyaashiisa sida sharafta leh baarlamaanka usoo mataqaanaa qiimeeyeen una soo qadariyeen inay noo yimaadaan asagoo uu naga tirsan yahay wasiirka amniga uu xubin ka yahay baarlamaanka runtan uu yahay saaxiib dhow laakiin waxaan rabaa su-aalado iskugu jira constructive iyo qaar raba inaan wax ka weydiiyo qaarkood waxay mudan yihiin in abaal lagu siiyo ama bilado lagu siiyo laakiin haddana in wax loo sheego mararka qaarkood waxay u qaadanayaan abaalmarin oo barkee waxay u sii qurxinaysaa shaqadooda waan aaminsanahay waaxda socdaalka oo inteeda badan ay ku jirto shaqadeeda oon hadda aan socodsiinayno gudoomiye waxaan rabnaa markii loo yeerayo dadka baarlamaanka looga yeerayo in la qiimeeyo waaxyaha ay ka tirsan yihiin guddiyada baarlamaanka ay ka tirsan yihiin hoos yimaadaan in lagu wargeliyo la yiraahdo مثلا guddiga arrimaha dibadda hoos yimaadaan wax socdaalka haddana waxna laga wargeliyay haba yaraatee ma jirto markaana waxaan u aragnaa amniga kama hadlayo waaxda socdaalka ka hadla annaga hoos yimaada baasboorada waa garan soo markii aan isku qabsan markii aan kala saaraya marka mar rabna in loo yeero in annagoo aan ka warqabin markii waxyaabaha annaga u hayno waxa waaye shaqo wanaag iyo howl badan oo socota laakiin aan boobsiista markii waa laga celinaa waxaan rabaa baasaboorada bixintooda oo wax badan aad moodo akhradaad inuu ka jiro waxaan waaye arag u ahay 11,500 oo baasaboor oo kala tacaligelin oo markhaati iga noqonayo oo xajka ah oo sanad walba la bixiyo in lagu bixiyo 2 asbuuc bar waa qiyaasi kartaa wiilka bakoolka imaanaya xudur ama ka imaanaya raas kabooni ama raas caseer ka imaanayo iyo kuwa Soomaaliland maanta aan ka sheekeynayna walow dhib ka jiro run ay tahay garow ay imaanayaan inta badan haddana
xajka dalal badan oo aan ognahay oo xajka yimaada ayaa baasboor la-aan u baaqda oosan imaanin ee kenya ugu horreysay dariska annaga waad ogtihiin marka waad garan kartaan marka in abaal lagu abaalmariyo oo la yidhaha 11,500 oo runtii xaaji in la sameeyo taa waa ka baxay gudoomiye maba qaadanba weli baasboortiska kale raalleho ani gudoomiyaha xukumiya raallehoya baasboortiska raallehoya baasboortiska gudoomiye aniga wafdigii madaxweynaha ka tirsanaa Ethiopia tagnay heshiis baa jira la galay prime ministerkii hore in 3 barood la sameeyo waxyaabaha faa'iido diinta raalaha qofku waa erga markuu taagay waa loo ogolaadaa waxyaabaha qaarkood 3 barood doolow feer iyo bohol ama dhinaca garowe xuduudda ay kala leedahay jamhuuriyadda waxa socdaalku ogyihiin oo maleena wax badan ka qabteen doolow waa la qabtay tii garowe waa la qabtay tan feerna waa soo dhowdahay waxaan rabaa kaliya CID-da in la geeyo degmooyinka booliiska ay ka furan yihiin intooda aqoonta leh shaqo badan bay qabteen waana u abaalcelinaynaa laakiin in la geeyo degmooyinka si galabtii ay u keenaan markaas waxay maalintii qabtaan oo laga baaqdo 10 saac habeenkii loo soo kacay waa mahadsantihiin weydii su-aashayda wasiirka macal wasiir adiga iyo taliyaasha kula socda waa idin salaama marku horeyso marka xigta waxaan rabaa inaan su-aashayda ugu horeysa ka dhigo wasiir warqadda dembi la'aanta ee CID-da ay bixiso aslan ujeeddada laga leeyahay ma lacag in la abuuraa waddankeena problem dhaqaalaa jiro mashaakila iska jiro booliiska iyo guud ahaan gaar ahaan waxaan rabaa hay-adda problem dhaqaalaa jireen aslan ma lacag baa la abuurayaa oo problem dhaqaala dartiis ma lacag dadka looga qaaday mase dembiyaa la baaray horta waa su-aashayda koowaad waxaan rabaa macal wasiir inaan ku xaqiijiyo marka la tago oo qofka muwaatinka uu tago hay-adda dembi baarista ee CID waxaa la weydiinayaa muwaatinka waxa uu rabo warqadda waxa uu rabo hadduu yidhaha baasaboor baan u rabaa baasaboorkii baa loogu qorayaa timbara ama maxaa la dhahaa qoraalkii kombiyuutarka loogu qorayaa macnaheedu waxaa weeye hadduu tago ou berri damco isla usbuuc ama 2 usbuuc gudaheeda immigrationka markuu intuu tago baasaboorka qaato shuruudihii bay ka mid tahay uu ku qaadan lahay baasaboorka haddana usbuuc ama 2 kadib wuxuu u baahanayaa inuu safaaradaha qaar ka mid ah sida safaaradda Turkiga oo kale oo ka qaata fiiso waxaa ka mid ah shuruudaha inuu CID warqad kala yimaado haddana uu ku noqoni aan bilmunaasaba originalkii waa laga qaatay waxaanaba ku qoran baasaboor oo haddii hadda la sii lahaa xataa waxba uma tarto dembi baaristu ma waxay ugu talagaleen marka baasaboor keliya qaab loo baaro ma jiro qaab loo baaro sidoo kale waxaa jirto hay-adda wasaaradda gaadiidka duulista hawada waxay soo rogeen nidaamka driving license qofka markuu rabo inuu tago CID oo warqad iska soo baaro waxaa dhici karta qofka within 1 week ama maximum 2 weeks gudaheeda isla qofkii inuu 3 jeer tago marka hadafkaasi muxuu waxa la baaraya maxay yihiin taliya su-aashaas aan rabaan inaan weydiiyo salaam mudane gudoomiye mudane gudoomiye wasiirka taliyaasha xildhibaanada sharafta leh assalaamu calaykum mudane gudoomiye ugu horeyn aniga waxaan rabaa cidda martida noogu noqonaysa horta mar walba baarlamaankan marar qaarkood inaysan fahamsanaynaa laga yaabaa meeshaan meesha dalka laga xukumo wey nin kasta oo yimaada ama xildhibaan inta ka dalacay wasiir noqday ama taliya ha noqdo meeshaan meesha dalka laga xukumo wey qofka halkan taagan ee hadlaaya sarkaalka ugu sarreeya dalka wey madaxweynaha halkaana laga doortaa ra-iisul wasaaraha halkaana awoodda uu dalka ku maamulaya laga siiya marka cid walboo meeshaan timaada marka ay halkaan timaado inay fahamsan tahay ninka la hadlaya ama su-aasha weydiinaya ninkii dalkaa xukumay inuu yahay idinkana inaa arrintaa aad dareensiisaan ama qolka ugu soo sheegay intayna soo gelin in oo hadallada oo xanaf leh oo isdhaafsi ah xildhibaan iyo qof shaqaale dowladeed oo meeshaan fadhiya waxay u eg tahay in awooddii dalka aan la kala garanayn intaa haddaan ararteeda uga baxo su-aashayda koowaad waxay ku saabsan tahay wasiir xuduudaha dalka kontaroolidda hay-addaaday hoos yimaadaan aniga deegaan doorashadeeda xuduuddu waaye dad baa ku dhinta ama duqaymo diyaaradeed ha noqdaan